maxaa kugu dhacay Soomaaliland meel baan ka soo noqonaya mid wali bixin khadar bay diideen baxo hooyo oo sida qof maanta dhool dilay maxaad afka la buuraysaa markaa haduu ku diido iska fadhiiso maxaan fadhiistaa hooyo xataa telefoonka biga qaaday maxaad sameeyay markaa kugu qabsada waxaan sameeyay hooyo khadar iskama ka qabsanay waxba kugu qabsaday wuxuu kugu qabsada sameeyay ma dii sheegtid waad baxday in bigu haysta hooyo wax kale ma sameeynaano maxaad markaa doonaysaa anigu inaan ku qabto kaale telefonkayga soo qaad hooyo adiga ku soo siinayay sababta telefoonka lagaaga qaad qarnaysa markaan ogaado man kaaga soo qaadi doona imkana aan shaqaystahay wareerin orod waxa ay maamadu u sheegayso waa been oo waxba kama jiro waxba ma sameeynin bay leedahay macnaha bixitaan iyo waxa uu igu haystaa laakiin waa been oo waxay sameysay iskoolkii ayay jartay ama ay u gambisay ama ay aadi weyday ayada oo la kulmeysay marka ayada ah saaxiibkeed ninkii Marwaan ahaa sidoo kale waxa baaqday macnaha ama ii sheegay baaqday kulan Marwaan aabihiis ay la kulmi lahayd oo ah ninkii ay gurigooda ku dhibaateynayay oo beerta uga shaqeynayay ama u waraabinayay walaalay doonayay man garanahay marnay albaabkan baan isku nimay wuxuu igu barnaamij doonaya laakiin markan albaabka ka furay kulmo joogin goormo tagay intaan adiga furay albaabka wax yar ka hor buu dhaqaaqa anigana ku dhibarna kuma soo bixi kartaa iska tag kulli ninkii baa soo diray wuxuu doonayay inuu dhibaateeyo kee mubaarak miyaa ha ma garanayo ninkaas wuxuu dhibaateynteeda ku faa'iido ما يبرني يمكن وحوي كان ينجدك لو سعدي لمبر كيغا أنا نقرأ مركو لا صعد لأنه قانينا وفرما السبب ما حدكم من السنين دبات وذين قفك دبات هذا وضع وجهكيسة كموقتها يمكن وجهكيسة إنه وناق وذا كموقتها واحد بدن بس كوريسة تاني دنكو يسوي ناس وريسة دوني لكن أنا قاعد أقاب صداي maadaama gabadhan barni saaxiibteed ah ay kala qorteen lambar ninkii Yaxya ahaa ayada u soo socoto barni iyo asaga oo sidoo kale barni raadinayo ee bartaas isku arkeen oo isku barteen lambarna way kala qorteen sidoo kale barni waxay u sheegaysaa Mubaarak amu ninkan ii soo diray oo ay ka naxsan tahay macnaha maadaama dhibaateynteedii uu ku macnaha faraxsanaa ama dadyow asaga uu soo diray hadda ka hor ay dhibaateeyeen ama goodi u soo goodiyeen waxyaabo noocaas ah marka wali waxay saska qabtaa inuu ninkii u soo diray haddana saaxiibteed maadaama intii ay maqashay ninkaas haduu Mubaarak ku soo hadal qaado waxa macquul ah in ay dib dambe oo la hadli weydo maadaama Mubaarak ninkii gabadhan dhibaateeyay uu ahaa saaxiibteedna hadda ay u sii sheegaysaba in laga yaabo ninkan uu Mubaarak u soo diray maxaa kugu dhacay waxba iska fadhiyo meesha malaawad soo walansa waxa ninka kaligiis la sheekaysanaya wali ma dadka dhoma markaa ka kaliya soo sheekaysta waxaan malaynayaa sheekada inta yar bad wali daba socota sheekada intaanad ku waalan iska daba harba koran ninkan wuxuu isku dayayaa qof kasta oo barni wax la qaban rabo ama macnaha dhibaatadaas inuu ka saaro isku dayo ama xaaladeeda uu ogaado in uu ka cuno qabateeyo asaga oo u soo marahayo maadaama waa ay jacayl ku adkeysay oo jacayl hore intuu u soo bandhigtay ee ku adkeysay oo ay tiri kuma rabo ayuu waxa soo dhan u sameeynayaa iyo waxaan dhibaato ah asaga inuu wax u qabto iska daay dadkii kale xataa uu ku dirahayaa oo saaxiibadii ahaa kii guhaad ahaa uu ku dirayba already oo waa ka gabadhii jaray haddana wuxuu isku dayayaa in uu ku diro Yaxye oo si kasta geed hoose iyo ii sheegay kursi dheer iyo kursi gaaban buu ugu fariisanayaa sidii uu macnaha kaga joojin lahaa ninkan in uu caawiyo barni laba mid bay noqonaysaa in gabadhaas sidoo dhexdeeda ku jirto wax ku dhaceen iyo inay gurigoodiiba ka soo bixin haddaan gurigoodi ka soo bixin cawilow wayna la soo hadli lahay anigu waxaan ka baqaynaa dhexdooda ku heshay ma bas bay soo raacaysa taxi ma soo qaadan yaabay ku tiraadiga baska ma raacdo baabo waxaan maleynaa inaan taxi soo qaadanayso haddaba gabadha dhexdeeda wax ku soo gaadheen waa inuu reerkoodii wargelinaa lambar ma ka haysaa reerkooda may nambarkeeda qurun baa hayaa waxaan sameynaa waa taas xitaa family-geeda lambarka ma hayo gurigooda ma garanaysaa hooyo
hadal dee war gabadha xaafadooda ma aragtay aabba xitaa haddii aan arkay in xaafadooda tagnaa mid la saxsantay maxaa dhacaya haddaynu tagno odayga dhiiqaa laga celcelinahayaaba gabadha gurigooda haddaan tagno maxaa dhacaya ayuu iska leeyahay maba ogaba gabadhan haddii uu arko inuu ka nixi doono oo ay tahay gabadhii dhibaateynaysay oo reerkii biyaha uu u waraabinahayay beerta uu uga waraabinahayay in gabadhii dhibaysay ee dhuunta u gashay ay tahay hadduu ogyahayba sidan ugumuna dadaaleen hadda sidaan arkaynana qof kaga dadaal badan ama kaga warbar badan ayadaas ma laha marka waa dad aana war isku haynin ayada laftirkeeda waxay rabtaa in mar-uun ay la kulanto ninka sodogeeda noqon doono laakiin war iskuma hayaan waa dad isnacab oo micnaha asaga laftiisa reerkiisu uga soo dacwooday oo waa ka gabadhiisa xitaa u sheegay marwaanna uu ogyahay micnaha aabihii in ma ogo asaga kama waraayo in aabihii shaqada lagu dhibaateeyo sidoo kale labadooda iskuma yaqaan laakiin labadooda face to face markay isku arkaan tii ka dhacda waa la yaabi doonaa iskuul la jarayo kaliya maaha sheekadeedu inanta yar waxyaaba ay wado wax loo dulqaadan kara maaha habeen dambe anuu arrinteeda kaala hadli maayo ee caawa igu dul oyday madaxay ku soo sii walaan maalmo yar baa hadhay intaan usoo jeedsanayo iska sii noolaatay intaa yar u qaad teleefonkeeda qoftii asma ahayd waxay soo dirsatay amran mar kasta ayada qof walba oo victim ah muxuu usoo adeejistaa barni baa sida aan ogeyn ee caawinaysay oo furo usoo qaaday oo cidda ka badbaadinaysay wax walba ka kala furfuraysay oo baraxaad uma ayada loo isticmaalaa micnaha inay baraxdo oo dadka baxarka iyo dhiiqada ku jiro ee ka bixiso ama dadka dulmanaha ah ee micnaha dhibaatada ku jiro ee ka bixiso hadeerna waxaa soo dirsanayso asmadii oo leh telefoonka iga soo qaad ayada oo dabcan rabto in ay u sheegto ama ay wargeliso in ay baaqatay maadaama kulankeedii loogu talagalay cuntana sidoo kale la diyaariyey weliba cuntadii hadda ay qabooday oo ka kacay reedi tahayba ilaa iyo hadeerna la sugay kula yar hadalada roygaad ma hol badaysaa mee waa caadi waad la hadli kartaa ogaad ninkan adigu wax kama maqlaya mid la hadashid maxaa dhacay sheekadeen faraag ka qaadnay buu weli daba socdaa intaanu inanta yar iyo sheekadeeda ku waalan in la hadalna saaxiib ma intaas la soo khayraysay in wax dhacay ma moodaybe ninkan aynu ku qasabno sheekadan in faraag ka qaaday ogaad